halkan markaad soo gaadho waxaad dareemaysaa inay tahay goob colaadeed isla markaasina ay dirir xooggan hore uga dhacday markaad fiiriso dadka deegaankan ku nool iyo qaabka ay u nool yihiin halkan gadaasheeda waxaa taagan nin dhalinyaro ah oo qorigiisa iyo ritigiisaba wata bal waxaan jeclahay inaan wax yar waraysi la yeesho walaal waa ku salaamay waan ka qaaday magacaaga sheeg walaal cabdixumed baa la yiraahdaa cabdixumed cabdixumedow qorigaagina saaka waa wata akayga geelina artigina wada waan wataa waa dhameystirana way bal iga waran deegaankan iyo nolosha ka jirta deegaankan iyo nolosha ka jirto horta waxaan ay ku dad waxaan horta xoolo dhaqata oo rayada oo reer guuraa oo guura marka waxaan soo food saartay ahayd colaad aad u daran oo ay nagu haysaa deegaanka anfarta ay nagu soo qaadeen hadda ka hor balse imika waxaa dareentaa in ay xaaladii ay degtay dawladii dhexe iyo ciidamadii deegaankaba ay caabiyeen hawshii imika waxaa la dareemaa inay xaaladdu ay iska degsan tahay imika anaguna hadda waxaan rabnaa haddaan reer guuraan nahay oo dadkii reedka ahaa ee galbeedka gobolka City aan nahay inaan xagga iyo haddii aan sii aadna galbeedkayga magaalooyinkayga Cundufo iyo Cadayto iyo Garbaciise inaan sii aadno iyaan diyaar u nahay anaguna hadda way adiga oo ritigii wada oo geedi oo awrkii ku raran yahay in qorigiina aad wadato maxay kaaga dhigantay inay qorigu horta waxaan nahay anagu dadka galbeedka gobolka City degan hadaan nahay anagu hadda ka hor xaggan kama jirin dawlad la yaqaan anagu awrka ran iyo xabada iyo qoriga ayaan iska macmeelsanaa dhulka ku degan hadaan galbeedka nahay hadda ka hor marka anfartuna ilaa hadda ka hor saaban isku gumaadayno waxaan noogu wacan dhibaatana waa anfarta inaan iska caabino oo aan qoriga iyo raatiga iyo waxaan inaas diyaarnana anfarta ayaa noogu wacan marka idinko galbeedka City dadkii shacabka ay deganaa bay anfar weerar idinku hayd mar walba mar walba weerar nagu haysaha kolka waxa qaabkan inaas diyaariyo noogu wacan waa anfarta cadowgaas baa noogu wacan anagu hadaan aan nahay shacabka galbeedka haye okay marka duurkan maraysa artigina wada qorigiina wada wax xabsi ama ka qabtaa in cidla laga helo si kastaba wallahi oo horta dagaalku lugtaada ayuu ka qarxaayo si kasta uu iskaga badan yahay oo meel inuu ka helo waa dhacda dagaalku laakiin aanu waxaan is wax kastaba ka dhaxtiro raatigaagii iyo qorigaagii iyo qolxadkaagii iyo waxaagiiba wado isdiyaar baa jiraan qolxadkina wata xitaa waxba igama maqan marka kana muxuu ku qabanayaa qoriga garanay kaani wuxuu qabanayaa mar waxa jirto ninka aas qasbataan oo isgashaan marka ma iska dilaa marka uu ka dilaya marka gacmaha soo tagtaan gacmaha marka soo tagaan la baxo waa iska dilaa mar baa jirta xabadu ay ku shaqeyn moogta marka ma iska dilaya qolxadka marka xilli waxa jirta in xabadu ku shaqeynayno isagu ku shaqeynay isagu ku shaqeynay saal aji marka gacantaan u wataa inaan ku dagaal gal marka dhinac walba ka hubaysantahay dhinac kasto diyaar way waxba igama dhinna waayahay dhibaateynta leeg ba hadda dadka shacabka ah reer guuraaga aatiin idinka soo gaadhay dagaaladii ay anfartu soo qaaday dagaalada anfartu ay soo qaaday horta wax badan baa naga soo gaaray ceelkayga naga soo aymadsaday awsahayagii dhirtayadii caymahayagii aan ku noolayn wixii oo dhan baa naga soo caydsaday waxaad kale oo dareemaysaa anagu waxa nin aqalkiisii laga soo caydsaday inta uu dhibaato leeyahay iyaan leenahay dhibaato xoogan baa anaga na soo food saartay hadda ka hor imikana waa xaaladdu way iska degantahay deganaashaan ku sheegaani way heshiis baa la gaaray oo deegaanka Soomaaliya deegaanka anfartu gaareen heshiiska kadib xaaladdu sayta heshiiska kadib horta wax xabad aan ugu ma dhacdo xabad horta ma jirto maalmahan wax xabad oo anaga aan isku ridna anaga iyo anfar ma jirto adugu se dhulka guriyahayga waa wali kuma laamin xagga aagama iska deganahay guriga kuma laamin waa wali way guriyihii hore leedin ka soo barakaciyay wali kuma idaalaaban kuma laamin guriyihii kuma laamin marka guriyihii wali ma yaga jooga guriyaha anfar ba hadda ku sugan iyo ciidanka Itoobiya leeyahay adigu dagaal ma ka qayb gashay intii dagaaladu dhacayeen waan ka qayb galay xabadu way igu taalaabaani way ugu dhacdayba lugtiga ka taala xabad qof aan dagaal galin xaggan galbeedka gobolka City oo shacaba oo raatiga iyo sidayda u diyaar ah oo dagaal galin ma jira maxaa dagaalka u galeyseen dagaalka wax aan u galeynay horta anfartu waxa ay ka dimanaysaa ama ay ka duuleysaa waa magac la yiraahdo Soomaali
marka dadkaas oo cadow ah oon jaar lahayn oo Itoobiyaanka ka mid ahayn oo say Itoobiyaanka oo kala aan ahayn Itoobiyaan kala wala noolaan kar laakiin caanfar lama noolaan karayo waxay ka dhimanaysaa magaca wariyaa la dhahdo magaca Soomaaliga ee wariyaa la dhahdo ka dhimanaysaa maadaana ay tahay annagu qadiyada Soomaalida dad nacab ayaan u dhibanay bas aan iyaga noo dilayeen aan baan isku dilayna bas hay marka dhulkiina difaacayseen qadiyadan waa ilaalinaysa ha qadiyada wariyaa ayaan ilaalinaynay in ay laga xumaado ayaan anaguna ka xumayn ama dhul laga qaato ha ama dhul laga qaato waliba sida kala dhul boob ay ahayn way nagu soo duulaysaa anfartu hay magacaaga igu celi waxa la yiraahdaa Cabdi Xumed ha daadada ma taqaan Cabdi Xumed ha meeqa jir baad 23 jir baan 23 sano jir ha marka meeqa sanad qori wadatay oo dhulka difaacaysa adigu ilaa 18 markaan gaaray anoo baan qaato qoriga aabahay kala wareegoon difaacay hay aabaha baad kala wareegay ha aabahay baan kala wareego iska wara saawis difaaci jiray marka kuuriyaankan aabaha baad ka qaaday ha kuuriyaankan aabahay baan ka qaato kuuriyaankan waa kuuriyaanka aabahay weey hay haddana ku furtaan rabaa hay marka inaad ku furata rabtaa kuwa kale inaan ku kala jiido kuuriyaanka aabaha isaga bedelaan rabaan ku furto hay hadii dagaalku mar kale hadduu dagaalku mar kale dhaca aad baa u maasantay Cabdi Xumed adaa mudan markii la idin soo gaaray halkan inta soo barakaceen halka degteen haddana canfar idin ka daba timid halkan soo gaartay culays inta lag baan soo food saaray culayskaasi waa kugu darab haddana haye adoo kacay oo haddana kacligu yiri waan kici kari haye wixii waa ilaahay wixii qaadi karo wixii kalena waska naalaa kolkii ciidankan ilaahay la qabtay dib loogu reegan waanaga gudbana haddana dib u laabana gudbana haddana daba degno kolka culayska ugu xun dharaartii halkan ay noqoto mid ay noqoto haddana meer walba la xoreeyana waa dadku waa daba degaynaa haye imika halkan waan ka guur haddana gacantaag meesha leh haddana tigni gacantaag labada buurood ku muuqato way ka sii jeedaa halku ciidanku joogo halku ciidanku joogo ayaan daba joognaa halka nadaafsa halkii ay xabadu soo gaadheen baa laga degay baa ciidanka ku dajinay imika halka baan ayaan daba degnay marka meel walba oo dadka deegaanka difaacaya ay jiraan waa daba joognaa gacantaag meesha la yiraahdo iyo imika ciidan ka horeeya magaalada waan daba furay adiga guriyahaaga iyo deegaankaad ku noolay xagee ahay waa dan la helay ha iyo nawaaxiga cundufo ku waxaan ku lahaa 3 guri baad ku lahaa dukaan iyo laba xaafado haye intiba dukaankaaga ilaada anfar baa haysato anfar baa haysato haye waa ka meesha hadda maxaa kaaga dhisan waxa iga dhisan deed waa shiraaca waagi leysay ma iga dhisan shiraacu ka gogo haye imika de waan iska hariyaa haye de xaqan ku laamina ma jirto xaqqa dambe oo eegun weeyaan xaqqa guriga uma eegaya de xaqan horeta marka ay soo barakicinayeen dad ay idinkaga dileen meesha ma jiro ana saddex way dileen saddex ila dhashay dilay saddex baa ila dhalato saddex way dilay saddex canfar baa dishay haye waa isla maalintaan soo barakacaynay inta hore iga dah isla maalintaan soo barakacaynay saddex ila dhalato saddex way dilay waa ka kuri ma hayn ya wax dhib oo kale ka soo gaaray agoonta ka wal tagay bay haysata bid waa kalimka xafada la hariyo waa la hariyaa waa ku mid way fadhidaa inta way wal fadhiyaan agoonta saddex ka tama way fadhiyaan dees waxa du dhig xoolana way la hareen xoolihii ay cunayna way la hareen haday dukaan lahayd ma dukaan ba ku rooraydi way cunayna halka lagu hareen haye waa ka saabas ko ayaan soo haysanaa dawaan meel ma ku baqtiro naga meel joog waa ka laakiin hadda ugu yaraan nabadgelyo haysan nabadgelyo de inta ka tagtay soo tagtay fag waa saas ha meel fog dan leeyahay imaka loo muuqdo dan leeyahay loo muuqdo marka waa u mahad celinaya dadka difaacay ee dhiigooga horay maxaan ku dhahay waan ma celinaya anigu imaka saddex goor baan dhakhtarka bikil igu cishay igu dhacday tabaalaha ha xabadu ku fatay haye de tabaalnimada wanaag iska fadhiya meesha haye waa ka ma meel ka jabis ha lugtan dhowr meel bay ka dhacday haye waa ka hadda marka xaaladda u sayta xaaladdu imika da caafimaad u marayay walwalka kale de walbahaarka dadkii ilaahay igu xidhay ayaa de igu daran dadka hadda tuuladan ku nool intee leeyihiin dadkaasi wuu iska daraasaysan yahay uu badan yahay dadkan aad buu badan ila dhowr kun ruux ku nooshaa